gabadhan waxay tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh waxaan mar walba ku riyoodaa hooyaday oo dhimatay 5 sano ka hor waxay tiraahday halkan kasta habeen kasta waxaan ku riyoodaa hooyaday dhimatay 5 sano ka hor habeen kasta maxaan sameeyaa sheekho bismillaahi raxmaani raxiim haddii ay su-aashaas aan aadno sida maaragtay culamada islaamka oo gaar ahaan ru'yada cabira waxaa weeye waalidka arwaaxiisu mar walba qofka oo dhalay waa la joogtaa arkidaasna waxaa waaye waa khayr hadday ku aragto wax nuqsaana oo markaasi dhibaato ay ka muuqato ah xoogaa dhibaatay qabtaa waa inay wirdi u akhriso u ducayso ayaa la rabaa wax u sadaqayso ayaa la rabaa haddii wanaag xaala xasana qurxan ay ku aragtani waxay tusaysaa hooyadeed inay maaragtay meel fiican ilaahay geeyey mar walbana maaragtay ay la socoto dadka amwaadaahu qoyskooda mar walba waa la socdaan waa u yimaadiin marka gabadhaas waxaa laga rabaa haddii maaragtay hooyadeed xaala xasana ay ku aragtay inay ku faraxdo inay ducayso hadday xoogaa cunuqsaana ay ku aragtane in xoogaa dhibaato ay jirto ayay kutubtu sheegayaan oo waalidka xoogaa dhibaato qabo markaasna inay u ducayso waxna u sadaqaysaa laga doonaya hada bilaahi tawfiiq